السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiinba meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada idinku talagalay maanta oo Khamiis ah waa barnaamijkii ugu horeeyay oo aan idinku soo gudbin doono macluumaad ku saabsan wararkii ugu waaweynaa ee dhacay saacadihii la soo dhaafay. taariikhdu waa 23 May sanadka 2024 waa maalinimo Khamiis ah. haddaba qodobada barnaamijkan aan idinku soo gudbinayo waxaa ka mid ah Mareykanka oo si rasmi ah maanta u sheegay laba askari oo ka tirsan ciidanka Mareykanka inay ku dhaawacmeen magaalada Gaza. halkee ku dhaawacmeen, sidee wax u dhaceen, tafaasiil baan idinkaga hayaa. waxaa sidoo kale aan barnaamijka idinku soo gudbin doonaa Israa'iil oo si weyn uga walaacsan go'aan la filayo berito inuu ka soo baxo mar kale maxkamadda cadaaladda adduunka. haddaba sidee wax u jiraan, muxuu yahay go'aanka walwalka ku abuuray mar kale Israa'iil? tafaasiil baa iyana aan idinkaga soo gudbin doonaa. waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu hayaa Xuutiyiinta oo weeraro cusub qaaday markabna ku garaacay gantaalo. haddaba wararkii laga qoray iyana waan idin soo gudbin doonaa. waxaa sidoo kale barnaamijka aan qodobada idinkugu haya ka mid ah khariidadii telefishinka Al Jazeera uu ka diyaariyay saacadihii la soo dhaafay dagaaladii kululaa ee ka dhacay Rafah, Jabaaliya iyo qaybo kale oo ka tirsan marinka Gaza. taangiyada la gubayo iyo meelaha hadda lagu kala sugan yahay ayaan wararkii ugu dambeeyay idinkaga hayaa. qodobka ugu dambeeya barnaamijka waxaan idinkugu hayaa Allah u naxariistee maanta waxaa la aasay mas'uuliyiintii waddanka Iiraan oo ugu horeeyay madaxweynihii waddankaas Ibrahim Raisi. munaasabadiisa waxaa ka qayb galay wufuud ka socotay ilaa 40 dowladood oo tacsi u tagay halkaas. waxaa ka mid ahaa mas'uuliyiintii halkaasi tagtay ee dadka Iiraaniyiinta khudbadda la yaab kale u jeediyay hogaamiyaha xafiiska siyaasadda ururka Xamaas Ismaaciil Haniya. kulan wanaagsan khiyaaray mar kale meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii ugu horeeyay maanta oo Khamiis ah innagoo idinkugu soo gudbin doona barnaamijkan qodobo muhiim ah oo dhammaantood ku saabsan wararkii ugu waaweynaa ee dhacay saacadihii la soo dhaafay. waxaynu ku hormaraynaa maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa la filayaa berito inay go'aan mar kale ka dhexinaya soo saarto Israa'iil. haddaba go'aankan muxuu yahay? Israa'iil miidiyaheedu waxay sii bilaabeen shalay ilaa xalay ilaa saakay way ka hadlayaan. haddaba go'aan noocee waayo go'aanka la filayo inuu ka soo baxo berito maxkamadda cadaaladda adduunka? haddaba Al Jazeera ayaa qortay sheeko ku saabsan maxkamadda cadaaladda adduunka waxay soo saari doontaa berito xukun kaasoo markaa Israa'iil ku saabsan weerarka ay ku hayso Rafah. haddaba tafaasiisha sheekadan way sii socotay. waxaa leeyahay maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa waxay sheegtay waliba waxaa leeyahay maxkamadani waa hay-ad garsoor oo hoos timaada qaramada midoobay sida telefishinka Al Jazeera uu sheegayo. maanta oo Khamiis ah ayaa waxaa la sheegayaa in maxkamaddu ay soo saari doonto beri oo Jimco ah arrin ku saabsan dalabkii Koonfur Afrika ay ku weydiisatay maxkamadda in la joojiyo dagaalka Israa'iil ay ka wado Rafah iyo guud ahaan marinka Gaza. haddaba dowladda Pretoria waa Koonfur Afrika ayaa maxkamadda waxa ay weydiisatay in amar lagu siiyo Israa'iil degdeg inay u joojiso weerarka iyo dagaalka ay ka wado Rafah. waxaana la sheegayaa dhammaan howlgallada military ee Gaza ka socda in la joojiyo sida ay dalbatay dowladda Koonfur Afrika iyadoo keentay cadeymo muujinaya in Israa'iil ay weli geysanayso dhibaatooyin ka dhan ah bini'aadanimada. maxkamaddu go'aanka ay soo saarayso berito sida la filayo wuxuu noqon doonaa in dagaalka
israa'iil ay waddo ay joojiso rafax midka hadda ay ku hayso iyo guud ahaan gaza oo go-aankaasaa la filayaa laakiin wuxuu doonuu noqon karaa laakiin inta badan wariyaasha iyo xataa dadka wax taxliiliya ee arrintan ka hadlaya ee yuhuudda ah waxay leeyihiin go-aanka wuu soo baxayaa shaki la-aan maxkamadda cadaaladda adduunka waxay ku amri doontaa israa'iil amar inay ku joojiso dagaalka laakiin israa'iil ma yeelaysaa sheekadeeda ma shaqaynaysaa maxkamadda oo israa'iil warkaas ma qaadanaysaa haddaba dadku siyaabo kala duwan ay u dhigayaan waa laga hadlayaa dadka qaar waxay leeyihiin go-aanku ma hirgeli karo ilaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay la geeyo golaha ammaankana israa'iil mar kale maraykanku waxay ka doonaysaa inuu u adeegsado awoodda vitowga uu saaro uu yidhaahdo israa'iil lalama hadli karo ee dagaalkaaga wado haddaba marka sheekadu waxay noqon doontaa sheeko mar kale isku qasan inaysan israa'iil aqbalayn waa la og yahay laakiin saamaynta israa'iil ay ku keeni karto arrintan iyo waxa shaqayn kara marka waxaa leeyahay israa'iil waxay ka shaqaynaysaa sida ugu dhaqsiyaha badan go-aanku markuu soo baxo golaha ammaanka in loo geeyo dabeetana maraykanka uu joojiyo uu yidhaahdo waxaasuu wax ka shaqaynaa male halkaa lagu joojiyo iyadu marka hawsheeda iska sii wadato taasay iyadu markaa aada u danaynaysaa leeyahy marka waa arki doonaa berito oo jimcaha haddii alla idmo go-aanka ay bal maxkamaddu soo saari doonto sida uu noqon doono qodobkaas halkaasaan kaga gudbaynaa qodobka kale ee barnaamijka aanu ku faahfaahin doono wuxuu noqon doonaa xuutiyiinta waddanka yemen ayaa waxaa la sheegayaa inay weeraro cusub qaadeen waayahay marka waxaa la sheegayaa hay-adda u qaabilsan dhinaca amniga badaha ganacsiga ee waddanka britain ee layidhaahdo ambri ayaa waxay sheegtay saacada ka hor in saaruuq lala eegtay oo lala helay markab ganacsi oo marayay meel ku dhow xudayda waddanka yemen shirkadda ambri ee waddanka britain ayaa waxay sheegtay in iyadoo qaabilsan amniga badaha in weerarkaasi gantaalaha lagu soo qaaday markab ganacsi kaasoo 68 mayl badda koonfur galbeed ka xigta xudayda waddanka yemen marayay haddaba wax tafaasiil oo intaa dheer shirkaddu hay-addu waxay leedahay nama soo gaarin oo khasaaro weyna oo uu geystay gantaalkaasi markabka lagu weeraray dhinaca kale maraykanka taliskooda dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa waxay goor sii horeysay oo maanta ay sheegeen in ciidankoodu ay ka hortageen oo ay soo rideen 4 ka mid a diyaaradaha daroonka kuwaasoo jamaacada xuutiyiinta dhanka ay ka maamulaan yemen laga soo riday oo markaa ku wajahnaa sida la sheegay fariisimada ciidamada isbaahaysiga ee maraykanku horkacayo iyo sidoo kale maraakiibta ganacsiga waaya yaxya sariic weli ma hayno laakiin waa imaana markaan oo kale markay hay-addan ingiriiskaa soo hadasho xogta ugu horeysa iyadaa hesha iyadu hadda nooma sheegayso markabka waxa uu yahay waddanka iskale ujeedadiisa wixii oo dhan ma hayso laakiin waxay noo sheegaysaa in markab ganacsi oo marayay meel ku dhow xudayda meesha la leeyahay oo 68 mayl u jira xeebaha yemen in markaa gantaal lala helay laakiin wax khasaaraha oo weyn oo loo soo sheegay hay-addu inaysan jirin halkaas waa warka kale waa weerarka xuutiga waxaa lagu yaqaanaa markay markab inay weeraraan rabaan maraakiibtan ingiriiska iyo kuwa isbahaysiga waa la mashquulinaa 4 maraykanka wuxuu leeyahay 4 diyaarad oo daroona soo ridna diyaarada daroona nala kusoo weeraru leeyahay annaga iyo ciidanka isbahaysiga meeshaa jooga xuutigaa nagu soo weerara marka iyaga waa la mashquulinaa maraakiibtaana nagtaa laga gelinaa kaartadaasu waxay iska noqotay macluum waa loo yaqaanaaba markay xuuti inay wax weeraraan rabaan kuwaan askartaan badda fadhiyana nin walba waxawaaye alla uu bixi markuu galo xagga la aadaa markabkana dhagdhag waa la adeeganaa labada dhinac hawshu waa isku dhammaatay marka weli ma hayno marka tafaasiil dheer oo ku saabsan sheekadan waxaanu ka sugi doonaa haddii alla idmo uu shirjiraad qabto saacadaha soo socda sida la filayo yaxya sariic afhayeenka jamaacada ansaarullah ee xuutiyiinta waddanka yemen
qodobkaas isaguna halkaas baan kaga gudbaynaa. waxaan u gudbaynaa marka qodobka kale ee barnaamijka aanu ku soo qaadanayno. Maraykanka waxay sheegeen askar ka tirsan ciidankooda inay ku dhaawacmeen Gaza. durbaba marka Gaza lagu dhaawacmay la maqlo waxaa qofka ku soo dhacaya dagaal baa meesha lagu ogyahay, alyaasiina socda, duqeymaa socda, waxbaa wiifaya. qofka koow wuxuu isweydiinaa ciidanka Maraykanka ma dagaalkay qayb ka yihiin? hadda ka hor wax qarsoodiya maahane wax muuqda lama sheegin, laakiin hadda Maraykanku waxay leeyihiin taas way ka duwan tahay. macnaha warbixintu waa war degdega goordhow soo baxay, waxay leeyihiin taa way ka duwan tahay. hadhow waan ogaan doonaa, laakiin xaqiiqda waxay tahay waxay leeyihiin shil ayay ku dhaawacmeen, si haliseena u dhaawacmeen. waxayna ka mid ahaayeen ciidankii dekadda macmalka ah ka dhisayay Gaza. tafaasiisha marka shilka wuxuu ahaa, siday ugu dhaawacmeen, waxa meesha ka dhacay, wixii oo dhan ma hayno. laakiin waxaan leeyahay 2 askari oo ka mid ah ciidamada Maraykanka ee dekadda Gaza wax ka dhisayay ayaa si xun shil ugu dhaawacmay. marka warka wuxuu leeyahay waana la qaadayo, waxa loo qaaday isbitaalada Israa'iil in lagu daweeyo, halkaas degdeg loogu qaaday. marka warka intaas uu ku kooban yahay. kullu wixii tafaasiila oo dheeraada oo ka soo baxa waa arki doonaa. waxaan galaynaa marka Iran. saakay aasaa loo sameeyey madaxweynihii, wasiirkii arrimaha dibadda waa la xabaalay. macnaha waa maalmahan oo dhan ayaa sabootiskiisu socday, janaasadii lagula tukanayay. maanta marka magaaladii uu ka soo jeeday madaxweynaha oo Mashhad la yiraahdo ayaa horta lagu aasay isaga, wasiirka arrimaha dibaddana caasimadda. saasaa marka nin walba meeshiisa lagu aasay. aaskii marka waxaa ka soo qayb galay ilaa 40 dowladood wakiila ka socda oo tacsi u yimid Iran. marka dadka ugu waaweyn ee yimid waxaa ka mid ah amiirka dowladda Qatar. amiirka Qatar tacsida Qatar iyo dowladaha khaliijka isagoo ka wakiila uu tagay. macnaha Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo waxa kan wafuud hoose u direen, laakiin isaga ninka ugu sareeya khaliijka ka socday waaye, macnaha ayuu tagay halkaas. waayahay marka sawirro aan idin tuso madaxdii qaar ka mid ah madaxda oo u tacsiyeynaya wadaadka Ayatullahi Khamenei oo ah ninka wadaadka ugu weyn dowladda islaamiga Iran. haddaba sawirka ugu horeeya sida aad arkaysaan waa ra'iisul wasaaraha waddanka Ciraaq oo u tacsiyeynaya Ayatullahi Khamenei. marka wuxuu sheegayaa inuu aad uga xun yahay dhibaatada iyo shilka ku dhacay madaxdii waddanka Iran oo ugu horeeyo madaxweynihii. marka waa tacsiyadeeyay. waxaa sidoo kale sawirkan kale idiin muuqanaya waxa uu yahay ra'iisul wasaaraha waddanka Pakistan oo isaguna tacsida joogay iyo aaska tacsida u tagay. waxayna dhammaantood u tacsiyeynayaan madaxdii tagtay Ayatullahiga ayay markaa u tacsiyeynayaan. sawirka kale waa amiirka dowladda Qatar. dowladda Qatar Tamim ayaa amiir Tamim bin Hamad ayaa waxa uu la fadhiyaa isaga iyo wafdigiisa. Ayatullahiga iyaguna way u tacsiyeynayaan. waxaa sidoo kale halkan idinkaga muuqda gudoomiyaha baarlamaanka waddanka Lubnaan ayaa isaguna tacsida halkaa u tagay oo u tacsiyeynaya Ayatullahiga. halkan kale waxaa ku jira ninka la yiraahdo madaxweynaha Tunisia ayaa halkan isna ku jira oo tacsida isaguna qayb ka ah. waxaa sidoo kale tacsida qayb ka ah sidaad arkaysaan hogaamiyaha ururka Xamaas ee dhinka xafiiska siyaasadda Ismaaciil Haniya ayaa isaguna tacsida maartay tacsiyadeynaya. waxa uu ka tacsiyeeyay Haniya isagoo ka wakiila shacabka Falastiin iyo guud ahaan shacabka reer Gaza geerida ku timid
ninkan madaxweynihii iyo wafdigiisii waxayna sheegeen inay waayeen dad garab u ah reer Gaza oo runtii taageero badan ay ka heli jireen. waxaana uu sheegay in dowladda Iiraan ay ka rajaynayaan isgarab taagoodii weligood ay garab taagnaayeen muqaawamada inay halkooda ka sii wadaan. aayatullaahiga ayaa isaguna munaasabada ka hadlay. waxa uu ammaan kala duldhacay Xamaas shaqadii ay qabteen 8 bilood ee la soo dhaafay sida ay 10 lama ilaawaanka ugu dhigeen sahayuuniyadda Israa'iil. waxaana ay sheegay aayatullaahiga Iiraan inta ay jirto oo kacaanka islaamigana uu jiro in mar walba ay barbar taagan yihiin muqaawamada gaar ahaan shacabka Falastiin sidii ay u heli lahaayeen dawlad markaa madax bannaan oo xor ah oo markaa aayahooda ka talisa. marka kulankaas aad buu isaguna xasaasi u ahaa. dadkii isu soo baxay ee aaska iyo janaasada iyo wixii isugu yimid ayaa waxaa la hadlay Ismaaciil Haniya. shacabka Iiraan waxaa maaragtay sacab ka dhacay iyo sida ay ugu jalbaysnaayeen hadalka Haniya waa yaabisa. weliba Haniya wuxuu ku hadlay af carabi. inta badan dadka Iiraaniyiinta carabiga waxbay ka fahfahmaan laakiin iyagu afkooda waa gooni. afgooniya ku hadlaan dadkan Iiraaniyiinta afkooda Urdu la yiraahdo maleyna afkaas ku hadlaan marka dad badan ma fahmaynin. laakiin Ismaaciil Haniya ayaa wax weyn ka ahaa meesha. Ismaaciil Haniya marka khudbadu jeediyay la yaab leh oo shacabka kula hadlay Iiraan wuxuu u mahad celiyay isagoo ka wakiila shacabka reer Falastiin. shacabka Iiraan isbarbartaaga iyaga iyo dawladooda ay shacabka Falastiin u sameeyeen. reer Gaza waliba ma idin iloobi doono dhahay. waana ka xunnahay dhibka idinku dhacay madaxdiinii inay shil diyaaradeed ku dhinteen. waan idinla murugoonaynaa tacsida waan idin soo gudbinaynaa. wax walba oo dhiba ah qabtaan waan idinla qabnaa u dhahay. dadkaasu ehel baan ahaynuu leeyahay. dad waxna taray waaye madaxda Iiraan. shacabkana siday u barbar taagan yihiin taageerada iyaguna noogu muujiyaan way ku mahadsan yihiin. haddaba hadalkii qiirada lahaa aan hadalkan idinka maqashiiyo in yar. waatahay Ismaaciil Haniya marka khudbadiisa intaas ayaan kaga gudbaynaa. aaskiina maanta ayuu dhacay saan horeedii kugu sheegay. marka qodobkaas isaguna halkaas aan kaga gudbaynaa. dagaalkii ka socday marka Gaza maxaa soo kordhay saacadihii la soo dhaafay. horta dagaaladu si la yaab leh u dhaceen leeyahay shalay ilaa maantay meelaha ugu daran hadda xabadu ka dhacayso waa Rafax. Jabaaliya awal noo saarneed baashu ay ka karkaraysa hadda waxay aad uga socotaa meesha la yiraahdo Rafax. marka qariidada telefishinka Al Jazeera uu kaga hadlayay saacadihii la soo dhaafay halka la kala joogo waxa la kala gubay meesha ay xabadu ka dhacayso ayaan rabaa inaan bal idinla wadaago. awal waxay ka bilaabi jireen Jabaaliya dhinaca waqooyi meesha ay baashu ka socotay. hadda laakiin waxay qariidadu ka bilaabanaysaa Rafax. macnaha mar walba meesha ay saaran tahay baashu ayaa qariidadu ay noo sharaxaysaa meesha dagaalka culus uu ka socdo. haddaba marka sida idin muuqata halkan gabadhu ay tilmaamayso waa Rafax. waxay leedahay marka Rafax diilinta meesha ay marsiinayso waa meesha wadada la yiraahdo Philadelphia oo ay doonayaan Israa'iil gabi ahaanteed inay qabsadaan. ilaa 11 kilomitir ayay wadada hadda gaareen oo ay galeen. meesha goobaabinta farta ku taagan tahay ee la yiraahdo Xayu Brazil
halkaas way dhaafi laayihiina la leeyahay halkaasaa waxaa ku qabsaday dagaal aada u kulul ayaa halkaa ku qabsaday. waa tahay khariidada mar kale haddaan idin tuso goobaabin ayay gelisay eriyada dagaalka culus rafax uu ka socdo. dagaalka wuxuu ka socdaa ay leedahay xaafadda la yidhahdo ashawka assalaam iyo almadaar qadiima lahaa ama aeroboorkii hore. eriyadaas xayo brazil waa meesha duqaymaha ay ka socdaan taangiye ku weerareen saakay iyo wadada la yidhaahdo george halkaas taangiyadu waa meesha ay taagan yihiin. waa tahay gabadhu waxay leedahay marka taangiyada taagnaantoodii wax ma tarayso halkii way dhaafi waayeen oo taangiyadii ugu horreeyay waa kuwan iyagoo gubanaya. eriyada xayo brazil la yidhaahdo ayaa lagu gubay dhowr taangi ayay leedahay oo way dhaafi laayiin halkaas. muqaawamada jilbaha ayay u aasteen oo dagaal culus ayaa halkaasi markaa ka dhacaya. marka rafax waxay leedahay saasaa la isku galay 11 kilomitir markay wadada ku socdeen ay gaareen xayo brazil ayaa taangiye laga gubay halkaasaa lagu joojiyay. laakiin duqaymee ku hayaan waxay doonayaan wadadaas philadelphia la yidhaahdo gebi ahaanteed inay gacanta ku dhigaan oo ay qabsadaan. wadadu marka waxay ku dhararan tahay ilaa badda dhinacna waa masar dhinacna waa falastiin. marka halkaasay rabaan inay qabsadaan. wadadaa waxay u arkaan istaraatiiji oo ay markaa kula socon karaan dhaqdhaqaaqa waxa u dhexeeya falastiin iyo masar. marka hawshaas halkaasay maraysaa. dhinaca jabaaliya marka maxaa ka socda? jabaaliya dagaalo goosgoosa ka socday leedahay way noo calaamadaysay jabaaliya meesha goobaabinta cad ay gelisay waaye. haddana mar kale goobaabin kale waxay gelisay cisbitaalka la yidhaahdo kamaal cadwaan iyo cisbitaalka kale ee la yidhahdo alcawda. waxaana goobaabinta ay gelisay ay ku tilmaantay ay tiri labada cisbitaal ayay qabsadeen ciidanka israa'iil. cisbitaaladuna waxay ku dhow yihiin saa arkaysaan mukhayam jabaaliya. meesha kale ee dagaalka uu ka dhacayo waqooyiga waxaa iyaduna ay tahay deegaanka la yidhaahdo beyt xanuun. waa meesha ay gacanta ku hayso beyt xanuun. halkaas iyaduna maaragtay dagaalaha ka dhacay. weliba dagaalada waxaa ka qayb galaa leeyahay koox maaragtay guuto ah oo maraykanku hadda ka hor uu sheegay inuu cunaqabatayn saarayo oo yahuud mayal adaga ayagaa soo galaa la leeyahay beyt xanuun oo ciidanka israa'iil caawiyey. laakiin halkaas askara iyaguna loogu dilay. dagaalo goosgoosha iyaduna ka socda. laakiin dagaalka xooggiisa wuxuu ka dhacayaa sida naloo sheegayo rafax ayaa dagaaladu ka socdaan. marka wadadaas hadda qaybay joogaan. 3 marka loo qaybiyo 1 dhig ayay qabsadeen aan leeyahay. labada dhig kale inay ku daraan ay xoog u rabaan markay wadadaas soo xiraan rafax oo dhan marka inay dhexda geliyaan. muqaawamaduna marka dagaal culus ay kala hortageen waa midka taangiyada lagu gubayo oo halkaa maaragtay waa la isku riiqmaa la leeyahay way dhaafi laayihiin 11 kilomitir. wuxuu wararaya arrimaha dagaalada kusoo kordha barnaamijyada dambe ayaan idinkula socodsiin doonaa. barnaamijkan wuxuu ahaa kii ugu horreeyey barnaamijyada 3 haddii alla idmaan maanta idiin soo gudbin doono. fakar iyo aragti waxaa qabtaan noogu soo qora qaybta commentiska iyo fariimaha. barnaamijka like gareeya oo share gareeya. sidoo kale haddaad nagu cusub tahay subscribe saaro youtube-ka facebookana follow gareeya si mar walba barnaamijyadeena aad u hesho. inta aan mar kale kulmayno akhyaaray meel kastoo aad joogtaan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.